waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. jaalayaal iyo johradooyin soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan leeyahay waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. waa ninka Cabdikhaaliq Macandoox Yaraha oo idinka soo salaamaya magaalada Kampala Garden Ohio Garden idinka soo salaamaya. salaan kadib maanta waxaan idin hayaa sheeko cajiib badan. intaan sheekada gudaha u galin waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saaraan akhyaarta nagu cusub inaad channelka subscribe saaraan videoga like commentiga share gareynta waxaas waa shaqadiini aad baad u mahadsantihiin. mar labaad waxaan leeyahay jaalayaal iyo johradooyin soo dhawaada daawasho wacan waa dhab waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV. nimanyo waxay soo gaartay iyo gabdhayo waxay soo gaartay sheeko cajiib badan. sheekadaas waa boqor kamid ah boqoradii mar dhexdaas jiray. boqorka magaciisa waxa la yiraahdaa Nucmaan ibn Mundar. Nucmaan ibn Mundar wuxuu lahaa laba maalmood buu lahaa. maalin nimcaysan iyo maalin habaaran ama maalin baas iyo maalin nimca buu lahaa oo isku xiga. maalinta baaska ah ama maalinta bacday hadduu ku qabto Nucmaan ibn Mundar wuu ku dilayaa wuu ku cadaabayaa cadaaban shadiidan. waad nacaysaa haddii maalinta xun aad ku soo beegmato. haddii maalinta nimcada aad ku soo beegmatidna dee xoolaa helaysaa waa lagu sharfayaa si fiican baa lagu baalkay garaynaya nasiibkaaga. waana laba maalmood isku xigta waxay ka dhigan tahay sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yiri soomku wax u fiican kan soomu Daa'uud kaana yasuumu yawman wa yafduru yawman. maalin waa soomi jiray maalin waa afuri jiray ma dareemaysid marka. sidaas oo kale isugu xigay labada maalmood oo Nucmaan ibn Mundar maanta ku qabanaya waa lagu dilayaa waa lagu cadaabayaa dhib baas baad la kulmaysaa. birri baa lagu qabanayaa wanaag iyo khayr baad la kulmaysaa. markii ninkii sidaas ahaa Nucmaan ibn Mundar ahaa wuxuu boqor ahaado oo sidaa dadka ku xukumo wuxuu baxaya qofku soo qabanaya maanta waa maalin khayr. xoolo iyo bahalkii baa lagu daabulaya. birri baa la baxaya oo maalin baas qof baa la soo qabanaya waa la dilaya. mid kale la soo qabanaya birri waxbaa la siinaya. maalinta kale mid kale la soo qabanaya waa la cadaabaya. marka labadiisa maalmood sidaas iskugu xigeen Nucmaan ibn Mundar. marka wax dhacday nimanyo maalin maalmaha ka bid iyo gabdhayo ama jaalayaal iyo johradooyin waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah baa ninkii Nucmaan ibn Mundar ahaa wuxuu soo qabtay nin buu soo qabtay. ninkii wuxuu ku soo aaday maalintii baas waa in la dilaa oo la cadaaba oo la dhibaateeyaa. hadduu ku soo beegmay maalintii baas Nucmaan wuu qabtay Nucmaan ibn Mundar geed baa lagu xiray ninkii waa lagu dilayaa waa lagu dilayaa geedkii baa lagu xiray ninkii. haddii geedka lagu xiray boqorku la hadlay intaan la dilin wuxuu yiri niyo boqorow idil aniga idil waan ogolahay maalintii baas haddaan ku soo beegmayba aniga idil waa ogahay idil aniga diyaar baan ahay. laakiin waxaan ka imaaday reer ciyaal iyo xaas baan ka imaaday oo wax u waday ma garatay. fasax reerkayga iyo ciyaalkayga aan alaabteedii wixii aan u waday aan u geeyo aan soo wanaajiyo la soo dardaarmo wixii xoolaha dadka aan ka soo tagay aan la soo dardaarmo kadibna marka aan ku soo laabto kadibna marka ay dil. waa diiday Nucmaan ibn Mundar ninkii waa ka diiday. wuxuu yiri kuma fasaxayo waaba ku qabtay hadan ku fasaxo ma soo laabanaysid soo ku fasaxa. waxa dhacday ilaa amarkii nin kamid ah nimankii Nucmaan ibn Mundar wasiiradiisa ahaa oo isaga ka tirsanaa maamulkiisa oo ka tirsanaa wuxuu ninka aniga damiinanaya aniga damiinka ah hala siiyo muddada uu rabo. hadduu ku soo laaban waayo ninkaas muddada aniga hal dilo. halkii baa ninkii la soo qabtay ninkii wasiirka ahaa ninkii waa la sii daayay. 3 bari baa loo qabtay waxa la yiri iska dabax 3 bari ku soo dhamayso hawshaada kadibna soo laabo. haddii lagu waayana ninkan baa u qoolana wasiirka oo la dilaya ee xisaabta ku darso. waayahay
nin yahay dabcan isgaranayaan si uun xiriir uga dhaxeeyo way ilan qof aadan garanayn iskama damaanadiisa ma qaadi karin ninkii sidii baa lagu fasaxay reerkiisii uu aaday ciyaalkiisii uu tagay wuxuu wada u geeyay xoolihiisa wixiisii ka soo kala dardaarmay wuxuu yiri daanu Nucmaan bin Mundar baa ay qabtay wuxuu yiri waa ku dilaya ana wax ku yiri dil laakiin dadka aan dadkayaan soo wanaajiyoon u soo kala dardaarmo oo soo kala xalliyo markaan soo laabtana idil waana iga diiday yiri markii horeeto ilaa ninkii hebel ah uu iga damintay oo yiri ana ninka daminka hadii anigana saddex isho gudahood leegu waayay inaan meesha ku laabtana isaga la dilaya oo u qoolan isagii baa la dilaya oo u qoolan reerkii wala soo reerka aad bay uga murugoodeen aad bay uga xumaadeen yani hawsha ku dhacday haddana isagii soo laabtay haddana isagii laabanay in la dilo loo laabanayo haddana ninka u qoolan wax ay ku farxaanba ma maqalba wax ay ku farxaanba reerkii ma maqal ilaa ninkii haduu joogana kiiba la dilaya hadda laabashadiisu farxad ma wuxuu idin safarku idin kaga baxay waa geeri uun inuu soo dhimanayo idin saa idin ku daayay ciyaalka agoon silic wax ay ku farxaanba reerkii ma maqal hasaatee isoo go'aankiisa uu qaatay uu soo tagay markuu reerkii wuxuu u soo kala dardaarmay uu soo tagay jidku maalintii saddexaad marka ku beegnayd uu jidka meel dhexe soo maraayo ay maalintii barqa ay noqotay barqade xilliga qorraxdu soo dheeraatay qorraxda halka timid soo dheeraatay buu Nucmaan ibn Mundar baa hadlay wixii ninkii ma lahayaa hebel aan fasaxnay maya ninkii wasiirka oo damiintay meey waa kan qabta wiirgeedka geeya hal lagu xiro geedkii baa lagu xiray kii wasiirka ayo damiintay ilaa ninkii lama hayay kiina waa soo socdaa jidku ku soo jiraa soo socday kaas jidku ku soo geedkii baa lagu xiray Nucmaan ibn Mundar wuxuu yiri wasiirkii waa ku dilaya adaa ninkii iga sidaayay ninkii wasiirka wuxuu ku yiri Nucmaan anagu dad saaxiibana ehleen wada joognaa in la dilana ana aqbalay idil ma baxume waqti isii maalinka wali ma dhamaane inta qorraxdu ka dhacayso ma garatay oo ma habeenku ka madoobaanayo isii marka aasku madoobaado qorraxdu dhacdo ninkii iimaan waayo maalintii saddexaad waa maanta idilba laakiin waqti isii inuu ninkaas yimaado baa laga yaabay waayahay Nucmaan ibn Mundar uu ka yeelay ninkii geedkii baa lagu xiray geedkii uu ku xirnaa ninkii wasiirka ninkii kiina jidku ku soo jiraa soo ordo waqtiga waa isguray wax la gaalay duhurkii cidna ma joogto casar baa la gaaray cidna ma joogto qorraxdii waa si gabaabsi noqotay waxba cidna ma joogto markay qorraxdu baalka dhigan rabtay baa waxa la arkay wax qof u eeg Araabiyadaas dhulkaas Carabtuna waa iska banaan buurama waa dhul iska banaan buu u badan yahay hadaad halkan istaagtid waa halka fog bidaanka soo socota waa arki kartaa oo dhulkii baa isku furan ingiriiska horizon waxa la yiraahdaa meesha cirka iyo dhulku iska galaan hadaad meel banaan istaagtid waxaad arkaysaa cirkii oo sidii oo noqonaya oo dhulkiisa u soo galaya iyagu saan isu soo galaya baad arkaysaa cirkii dhulkiisa isu soo galaya laynkaas ay iska galaan cirka iyo dhulku horizon baa la cirka dhulki isma gelin laakiin ishaadii baa wax noqonaysaa saa isu sawiraysa in cirki saa soo noqday sidii saas kala soo noqday marka qofkii meel banaan taagan meel fog horizonka dilinta horizonka wax ka soo muuqda waad arki kartaa haduu dhulku banaan yahay oo sidan kambaaladan oo kala wada buura ahayn buur dhan oo dhooba ah arkaysaa buur dhan oo hadii la qodo dhooba una marka dhulkaas waa siman yahay Araabiya badan ku saan u siman yahay waa la arki karaa aduu haday casar gaabadkii markay qorraxdu baalka ay dhigan rabtay la arkay wax soo socda waxba soo socda ma qofba ma noofba ma xoolaa la garan maayo dikii wuu farxay geedku ku xidhnaa wixii wax laga yaabaa inuu ninkaas soo socdaaba uu ninkii yahay wixii waa soo socday waa soo dhawaaday hada waa intee la dhow 10 kilomitir way meesha laga arkay uu soo socday markuu xoogay soo dhawaaday waa wax la arkay inuu wuxuu suurad bini aadam leeyahay uu qof bini aadam u yahay وصنف يا وحى وصنحين وواحد صوص وياهي روح بالآدم إنه ياهي منكي رينتي سوا صوفي عناتي وسير كا وحنا
bixi waa soo dhawaaday qorraxdina waa sii madoobaan oo sii dhici rabtaa wixii soo dhawaaday mise waa nin dumar ma aha wuxuu waa soo socdaa waa nin iyo naag waa la kala garanaya waxa soo socda waa rag talaabada lagu qiimeynaya bahalka lagu qiimeynaya ma garata xawaaraha iyo speedka ku soconaya lagu qiimeynaya ninkii waa soo dhawaaday ilaa ay qorraxda ka dhici rabtaba ay iftiinkii qorraxda dhacday laakiin iftiinkii uu joogo uu yimaadaba mise ninku waa ninkii isagoo ooyaayo ninkii yimid wixii waxaan ka cabsi qabay buu yiri ka baqanayay anoo jidka ku soo jiro imaada in ninka la dilo qor iyo baato isugu farxay markuu arkay ninkii geedka ku xiran oo wili la dilin oo ninkii dili la uu seefta la dul taagan yahay inuu yimi buu aad u farxay isagoo qiiraysan buu farxay oo yiri waxaan ka qiiraysan oo ka murugeysnaa in anigoon imaan oo jidka ku soo jira in ninka wasiirka ala dilo maalintii bedelay Nucmaan bin Mundar markuu intaa maqlay wuxuu yiri ninkii sii daaya ninkii horta wasiirka xirnaaday isaga waa la sii deynaya ninkii uu damiintay baaba yimi oo xaadir oo jooga ninkii xarig waa laga furay Nucmaan bin Mundar markuu arkay boqorkii Nucmaan bin Mundar waa boqorka moogta markuu boqorkii arkay yaani labada nin sida isku aamineen ninkan dilka loo xirto saddexda bari maqna soo soo laabtay markuu yimi sidii uga murugeysnaa in ninka la dilo isagoon booskiisa aan u imaan aad u qiirooday boqorkii Nucmaan Mundar maalinta laga bilaabana ninkiina lama dilin wasiirkiina lama dilin maalintii baaska ahaydna waa la kansalay meesha laga saaray Nucmaan Mundar wuxuu maanta laga bilaabo wax maalin baas oo aan leeyahay ama qof la dilaya ama qof la dhibaataynaya ma jirto saasaan ku kansalay yiri maadaama ninka saddexda bari uu maqnaa uu soo orday markuu yimina yiri waxaan ka cabsi qabay in ninka la dilo anigoon soo gaarin baan ka cabsi qabay waan ku faraxsanahay inaan ninkaas oo nool aan meesha ku imin sidii buu ku kansalay boqorkii maalintii wixii maanta laga bilaabo maalin baas ma jiro maalin walba waa maalin khayr ninkiina xoolo isla maalintaas looga bilaabo inay maalin khayr tahay xoolaha la siiyay baalkalti yani iimaanka isku qabeen labada nin iyo kan soo geeri ugu soo diyaar garoobo reerkoodii uu ugu soo sheegay in la soo dili doono halkii ba xoolaha la siiyay la wanaajiyay kiina waa la cafiyay reer waana la galbiyay reerkiisa dadkiisa loo geeyay dadkiisa wuxuu laatay isagoo faraxsan oo xoolihii iyo hantidii iyo wixii la soo siiyay wata boqorkuna maalintii baas uu kansalay halkaas xikmad badan baa ku jira aaminaad badan baa ku jira qof naftiisa ku aaminay oo hadana yimi dadkaas waa dadka hore nadiifka ah xalaasha ah adduunku maanta iska soo xumaaday oo ogtiin alla u sahal weeye wax badan baa adduunka ka socda muslimiin badan baa ka socda ilaahay naga haye marka sheekadaas weey xikmad badan baa ku jira waxaan u maleynayaa si fiican baad ula dhacdeen waxaan idin ka codsanayaa inaad channelka cusubtiin subscribe like share waxa soo dhan inaad nagu caawisaan waxaan idin leeyahay sheekadii maanta aan idinku talagalay wataas aad baana u mahadsantiin intaanu video kan oo kala ku kulmayno nabad iyo salaamiina inta dhimatana ilaahay ha u naxariisto annagana ha nooga daba naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV waa dhag oo dhammaystiran Dheeman TV